warbixintu waa dheertahay oo dhowr boqol ay gaaraysaa oo geej waxa hadda intaan ku koodi karna ma aha si kasta ahaatee qaybaha amnigana gaar ah loo soo qoray hay-adaha amniga sida wasaaradaha gaashaandhigga iyo nabad sugidda iyo booliska laba gaar inta kale aan amniga ahaynna gaar ah loo qoray si oo adiga ilaa macquulana waa loo qoray marka haddee warbixinta bogga 177 waxaa ku qoran xafiiska madaxweynaha iyo sida uu yahay oo macnaha wasaarad kasta gaar ah loo qoray xafiisyada waaweyn ee dawladda gaar ah loo qoray xafiiska madaxweynaha xafiiska ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka marka hadii la yiri xafiiska madaxweynaha laftigiisa ayaan dukumeenti lahayn oo aan xisaabaadkii aan la sixin oo wax isdibmarin ay ka jirtaa hadii la dhaay marka waxay ka dhigan tahay Soomaaliya ay ku maamaadaan madax meel ka sareysa oo la salaaxo ma jirto marka hadii aynan madaxweynaha ayna ka saxnayn oo qasab waxay noqonaysaa xafiiska ra'iisul wasaaraha ma saxna xafiiska wasiirka maaliyadda ma saxna gudoomiyaha gobolka ma saxna marka meeshaas waxaa ka soo baxaysa dhibaato xoog leh iyo in dalkan guud ahaan aan ka jirin nidaam maaliyadeed oo la isku haleyn karo aan ka jirin marka dawladda ka soo baxaysa in muddo ah labadii sano la soo dhaafay dadka Soomaaliyeed waxaa loo sheegay in nidaamka xisaabku fiican yahay in musuqmaasuqii lala diriday in wax kasta hagaagsan yihiin in sidii loogu talagalay yihiin marka taban dadka wax kasta waa ogaayeen in waxaan la sheegayo inay mataqaana ay been yihiin oo hadeewaadkii guddigii baarlamaanka ee qaabilsan korjoogteynta iyo la socodka mataqaana hantida ummadda sidii loo waardiin lahay markii ay yiraahdeen war waxba la isdibmariyo markii ay yiraahdeen waaba tii aygiba la eriyaba waa tii ugu xumeedo hay-adii fulinta ayaa baarlamaankii qaadatay si uuna baarlamaanku uusan arrimahan u faragelin marka musuqmaasuq kaliya ma dhicin hantidii qaranka kaliya lama dhicin oo wax la isdibmarin malaayiin lacag ayaa waxay maqan tahay hal sano kaliya ee dhibaatada waxay ka dhacday waxaa markii hore la dumiyay si ay u suurta gasho xoolahan in la dhaco oo sidii la rabo hantida ummadda cashuurta laga qaado iyo magaca ummadda xoolaha lagu keeno sidii la doono loogu isticmaalo ayaa waxaa markaa la dumiyay oo la dhaawacay oo daaqada laga saaray hay-adii xisaabin lahayd oo ah mataqaanaa baarlamaanka marka dadka Soomaaliya waxaa la rabaa inay ogaadaan lacag kaliya ma maqna inay lacagtaanu maqnaato oo malaayiintan lacag ay dhacdo oo xafiiskii madaxweynaha oo xisaab lahayn oo ra'iisul wasaare lahayn oo wasaaradii lahayn oo wixii oo dhan ay corrupted yihiin oo ay musuq yihiin oo xoolihii ummadda isdibmariyeen waxaa u saamaxay markii hore ayaa dawladdu oo ka soo bilaabanaysa dadka xafiiska madaxweynaha waxay dabar geliyeen oo ay disable ay ka dhigeen hay-adii qaabilsaneed inay check and balance ay ku samayso guddiga maaliyadda iyo golaha shacabka ula jeeda aad u maasanta waxaan rabaa guddiga maaliyadda iyo golaha shacabka laftigiisa ayaa la kala wadagtahay in gudoomiyihii baarlamaanka maalin cad intuu ummadda soo istaaga u dhahay waa la xooga marka ninkii gudoomiyaha baarlamaanka xoogay wuxuu xoogay baarlamaankii ninkii baarlamaanka xoogane wuxuu xoogay sareynta sharciga aad u maasanta waxaan rabaa marka inaad noo sheegto xisaab malahan iyo diiwaan iyo wada la raaco wax lagu baaro malahan bay warbixintu cadeynaysaa madaxtooyada iyo xafiisyada kaleba ma wixii ku dhacday cilmi la'aan ayaan dhahnaa mise waxay ku dhacday ogaalo wax isdabamarin iyo musuqmaasuqa looga gol lahaa waa ogaal sababtu waxay tahay ogaal inta waxaa cadeynaya hay-adii xisaabinaheed oo laga cabsanahay maadaama laga takhalusay hantida qaranka sida la raba laga yeelay ilaan waxaan ognahay hay-adda fulinta cidda ay tahay inay la xisaabtanto oo dalkan waxaa la rabaa dadka Soomaaliya inay ogaadaan dawladda saxda ah waa golaha shacbiga لأنه golaha shacbiga markii la helay kadib ayaa madaxweyne la doortay madaxweynuhu ra'iisul wasaare uu doortay golaha shacbiga ansixiyay ra'iisul wasaarihi xukuumadda soo magacaabay xukuumadda waxa ansixiyay golaha shacbiga xukuumadda waxay soo dejisay budget golaha shacbiga loo keenay golaha shacbiga ansixiyay marka golaha shacbiga oo aasaaska dawladnimada iyo hooyanimada dawladnimada ah ayaa dhabarka lagu dhiftay si hantida qaranka meel baylaha looga helo
waana laga helay oo waa la daldashay marka waxaa nasiib wanaaga marka lama dhahayo xisaabtan waxaa soo qoray maamul goboleedu annaga cadow ayaa soo qora lama dhahayo xisbi hebel oo mucaarad ahaa soo qora lama dhahayo UN-ka oo mataqaana ajnabiyaa soo qora lama dhahayo ilaan dadka waxaa loogu sheekeeyaa markay dhahaan war waxbaa qaldan waxaa leeyahay waa mucaarid waa siyaasi caraysan waa waxashaa caraysan maamul goboleed dawladnimo ma ogola kuwaan mataqaanaa adduunyada ka yimid waxay rabaa waddankeena inay soo farageliyaan dadka wax magaratada loo sheegaya markaan warkan waxaa soo qoray hanti dhowrka guud ee qaranka ee soo qoray madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo magacaabay waa maasanta waxaa rabaa meelaha qaar waxaa ku jirta hay-adaha qaarkood sida wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada kale jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo CID iyo meelo kaleba waxaa la yiri lacagii ay soo saareen dib u isticmaaleen macnaheedu waxa weeye Soomaha lacag ka dheeraada miisaaniyadii loogu talagalay oo ayagu ay shaqeeyeenna way isticmaaleen tii horena way isticmaaleen xisaabna ma leh maya taas keliya maayo kuwaanaaba inta qaada isticmaaleen kuwii kaloo dekada muqdisho laga qaaday iyo tii oo mataqaanaa adduunka inta Sacuudi Carabiya lacagay keentay oo 20 milyan ayaa 14 milyan camal lacag ku dhow maqad yani waxaad qiyaastaa 20 milyan ayaa 13 milyan iyo 200 ku ay maqan yihiin macnaheedu marka waa la iska qaatay waxa la keenay inta waa lacag la iska qaata macnaha oo no way waana lacagtii haddaan la socotay ay su-aasha ay ka keeneen nimankii guddiga maaliyadda ee baarlamaanka qaabilsanay ee xilki laga xayuubiyey ee la kala diray ee kuwa cusuba kaloo buga loo sameystay wax iska daldala ah gobolka banaadir dekada aeroboortka wasaaradda gaashaandhigga iyada ka hadal maba lahaba iyada waxyaada waaba iska bariga dhaxada xaalkeedaba ilaaha garanaya marka meeshaan waxa waaye korrabtid waaye sababta waxay tahay waxaa kaloo jirta hal arrin oo kalaa jirta oo iyadana jirta oo rabaa dadka in la sheego oo hadda kahor oo ninka odaga uu sheegay maruu ka hadlayay lacagta ciidamada wuxuu dhahay 2016 iyo 2015 hay-adaha amniga waxaa ku baxda lacag u dhigantaa 89 milyan laakiin 2017 iyo 2018 waxaa ku baxday 192 milyan ku baxday bimacnaa lacagta ku bixi jirtay laabkeeda ku baxday ciidanku waa isla ciidankii tirada waa isla tiradii tayada waa isla tayadii marka 100 milyan 100 milyan oo dollar ayaa sida ay ku baxday ayaan saxeen marka meeshaan waxa waaye marka deeqda adduunyada laga helay waxa la yiri kala bar in ka badan maqan oo aanan la ogeyn halkii ku baxday marka adduunyada dalkan taageerta iyo Soomaalidii oo dhanba maxaa calaamada ama aragti ay ka qaadan karaan warbixintan iyo dalkii sidoo u socdo maya adduunyadu ogeedo hadda kuwa international transparency waxa la dhaaf Soomaaliya waa wadanka ugu musuqmaasuqa badan moogtahay waxaa kaliya oo soo baxayso muhiim dadkii dhahayeen musuqmaasuqa la dirinay dawladdan waa nadiif dawladdan waa caadil waa dawlad lacagta yani wixii beenta dadka loo sheegay 3 sano loo sheegay oo la dhahay musuqmaasuqa la dirinay ayaa waxaa soo cadaatay inaan musuqmaasuqa la dirinay ee musuqmaasuqa hadda leeba koow yahaba intee lagu arkay lacag 20 milyan oo 14 maqan tahay ama ay maqan ku dhawaad yani waxa la isku leeyahay hadii xataa wax la xadaaya xataa boqolkiiba 10 iyo boqolkiiba 20 camal la xadaa macnaha waxay ahayd hadii inuu tahay inay sarxadin laakiin hadii ay isdib marihayaan oo meel baas ka bixinayaan 20 milyan waxay ahayd inay 2 milyan iyo hal inay qataan ugu dambeyn inay afar inay yani waxa muuqanaysa beesha inay joogaan mixsoodayaal way su'aasha ugu dambayso waad ogeedo baarlamaankii shaqadii laga fariisay sida hadda la sheego guddigii maaliyadda musuqmaasuq sheegay golaha shacabka waa la kala diray waa la eriyay hadda way shaqo gabay noqdeen lagu xantaa hanti dhowrka qaranka oo warbixintan soo saaray cadeeyay musuqmaasuq heerka uu gaarsiisan yahay xafiiskiisa iyo hanti dhowraha guud maxaa laga filan karaa mustaqbalkiisa والله سيدا أن كنا كان سيستم كهدي وحنا كان إن وحنا مليها إن إرجع دونان طبعا أدي دونان محاد نوك شفت بح تنا سكتي دونان لكن already دوكيمنتي جواله أولنا ما سبوا اللوجا إنه corruption كجرو مسؤول قوي يعني مركز أوجد هذا أنه أوجد حنجاي قف كاستواء أوجد طبعا سوماليا وحال رضا هل شيء وحرما إلا أوجده dalkan Soomaaliya 1960 markuu dawlad noqday ilaa saacadan la joogo musuqmaasuq waa jiray
laakiin waxaa jira ayadoo musuq maasuq jiro oo waxa la xadayo oo waxa lagu dheelayo haddana waa si fiican loo baarinay laakiin in laga soo dhigto tabeela laga dhigto oo la dhaho musuq maasuq yaa la dirirnay xoolihiin waardiinay wax lama xado waa fiicanahay oo intan soo martay musuq maasuq waa musuq maasuq ugu badnay dalkan soo ma marin 60 sano oo dawladda yahay 20 milyan oo mucaawano ah oo 4 milyan ku dhawaad xaday ama meel ay aadal leeyahay dalkan soo ma marin waa markii ugu xumeed taariikhda Soomaalida oo musuq maasuq waxaan kale ku celiyaa markasta wadankan musuq maasuq waa jiri laakiin tan oo kale lama arag tan waa ugu waxay ka soo horjeedaa boqolkiiba dadka Soomaaliyeed wixii loo ballan qaaday oo dawlad wanaag ahay oo maamul wanaag ahay oo cadaalad ahay oo qurux ahay waxa soo baxday in waxay been ahaayeen dadka loo sheegay afka baarkiisa ay ahayd oo la rabo ummadda Soomaaliyeed magaceeda wixii lagu soo qaaday gudaha markay gudaha qaateen dhameeyeen wixii ajnabiga keen haddana qaateen ma garanayo meeshay geynayaan iyo meeshay ku cun doonaan ma naqaano laakiin dadka Soomaaliyeed waxa la rabaa inay hurdada ka kacaan magacooda iyo wixii laga qaaday iyo wixii lagu soo qaaday waa la qaatay inay wada dadka waxa dadka inay ogaadaan